MTV MMTV بسم الله الرحمن الرحيم كلنتي وعنا wanaagsan daawadayaal halkani waa telefishinka MMTV Man Media kusoo dhawaada wareysi gaar ah oo aan la yeelanayno wasiirkii hore ee caafimaadka ee dawladii madaxweyne Riyaale Mudane Cabdilaahi Xuseen Iimaan Dirawal isla markaasina ahaa siyaasi muddo dheer dalka u soo shaqeeyay jabhadii SNM Cabdilaahi ayaa saaka wareysigan wuxuu ku saabsan yahay dhowr qodob oo la xiriira siyaasadda Soomaaliland iyo haatan halka ay marayso bal ugu horreyn waxaan weydiinayaa isbahaysiga mucaaradka iyo xukuumadda oo isku haya golaha wakiilada Soomaaliland sida uu arko iyo kaalinta mucaaradka uu isku bahaystay ku soo dhaw Mudane Cabdilaahi bismillaahi raxmaani raxiim runtii waa wax iska caadiya marka la tartamo horena way noo soo martay oo berigii udub dee kulmiye iyo cid isbahaysigaasoo kale kaga qaadeen maxaa la yidhaha shir guddoonkii beriga qaabkan ay u tartamayaanna waa tartan caadi oo siyaasi ah laakiin waxaad moodaa doorkan farsamadu ka yar xumaato xagga laaluushka dee laaluush mid waliba kolle waa la bixin jiray waa la maqli jiray in laaluush la bixiyo laakiin tani waxaad moodaa inay ka yaraa excess tahay oo ka qaylo badan tahay farsamada ka yara xun baan u malaynayaa qoladan wax loo bixinayo waxa ogaaday ilaa masaajidadii baa laga qaylinaya islaamii baa ku sheekeynaya dee waxaas may ogaan jirin baalka haddii heerkaa u gaadhana dee uu fool xumaanaya laaluushkuna runtii nin dhaartay oo kitaab maray diiniyan iyo bili-aadnimaba labada midna uma wanaagsana inuu qofku laaluush qaato hadduu laaluush qaatayna waxba u tari maayo dadka hadhowna wax kasta laaluush baa la siin waa lagaga dhamaysan wax kasta laaluush baa lagaga dhamaysan haddii iminka labada dhinac waxaad moodaa inay ka go-an tahay mid kastaba inuu awoodiisa muujiyo madaxweynuhuna wuxuu go-aan ku gaadhay inuu faratoon dhiso yaasiin xaaji maxamuud xeer faratoon xisbiyada isbahaysiguna waxay go-aan ku gaadhay inay dhisaan cabdirasaaq khaliif axmed loolankaasi midna aqlabiyadii bay haystaan mucaaridkii oo 250 mudan ay haystaan waxay haystaan 250 mudane xukuumaddiina waxay haysataa 30 mudane 280 mudane maadaama ay saas tahay sidee ku iman karaan in aqlabiyadda ay ku helaan xukuumaddu maadaama madaxweynuhu uu yidhi waan dhisaya go-aan baan qaatay aqlabiyaddiina aanu hayn waa si wanaagsan cabdikariim horta marka ugu horeysa dadkan xisbiyada ka soo baxay xisbiyadeenu ideology ay ku kala duwan yihiin ma laha waxa qofku uu aaminsan yahay amba fakar uu aaminsan yahay oo uu ugu tegey xisbigaas ma jiro wuxuu ugu tegay aad ka soo baxay weliba lacagna qaada oo ka soo bixidda lafteeda ayaa lacag lagaga qaada marka dad horta dadkan la soo saaree ay mucaaradku soo saareen amba ay soo saareen maxaafidku dad wada aaminsan maaha waxaa laga yaabaa inaana xitaa marka hore isjeclaynba inaanu jeclaynba xisbiga laakiin uu doonayo inuu ka soo baxo marka qofkii haddaanay jirin fikir mideeya wax lagaga tala galaa ma jiro qoladan mucaaridkiina waa laga dee rag badan baa noo soo baxay un bay leeyihin rag gacan ugu jira oy gacan ku hayaan maa raggani haddii dee laaluushku shaqeeyana dowladda ay lacag haystee kuwana waxba ma haystaane hadduu laaluushku shaqeeyana dowladda guuleysanaysa haddii uu caqligu shaqeeyana mucaaridkaa guuleysanaya wasaas leeyaano way Cabdilaahi mudane hore waad u soo joogtay arrintan oo kale waxa isbahaystay kulmiye iyo ucid 28 mudan oo kulmiye ah 22 mudan oo ucida sidaas ay ku heleen aqlabiyadii 49 mudane kadibna waxay doorteen gudoomiye Cirro ucida gudoomiye ku-xigeenkii oo ahaa Cabdicasiis Samaale iyo ku-xigeenkii labaad oo ahaa Baash Maxamed Faarax mucaaradku saddexdiiba saasay ku qaateen waqtiga iyo waqtigan maxay ku kala duwan yihiin bad oran kartaa maadaama iyagu mucaarad ahaan bariga ay awoodi wada qaateen mucaaradka waqtigan muxuu kaga duwan yahay kula tahay wallahi dadkay ku xidhantay iyo qoladan dee xisbiyada haystaa si ay u hantaan dadka ayay ku xidhantay noocyada dadka soo baxaya xidhantay oo berigaaba dee laaluushku u jira inkastoo dee la maqli jirin oo aan sidan imanka loo maqli jirin fadeexadda loo maqli jirin wixii la siinaya hoos baa la isu sii jiray
haddana waa kuwii ku guulaystay iminkana way dhici kartaa inay helaan maxaa la yidhaha qoladan oo siyaasaddeena markaad waayo aragnimadeena eegto udub markay 2 jeer soo guulaysatay mar saddexaadkii weeye markan laga qaaday kulmiye iminka 2 jeer buu soo guulaystay mar saddexaad waa u dhammaatay watu kaga tegayey saaxadda kaga baxayay sidii udub ayuun baan anu arkaa inay tay maxaad uga jeedaa 2 goor bay udub soo guulaysatay dee berigii hore markii 2 goor soo guulaysatay ayaa mar saddexaadkii naga baydh la yidhi markaa golayaashii deegaanka 2002 iyo 2003 madaxweynaha ay ku guulaysatay 2 goor bay soo guulaysateen udub kuwana 2 jeer bay soo guulaysteen imanka dee waa bartii kii hore lagu qabto ma lagu qabtay kuwana marka waxaad leedahay taariikhda ay soo celinaysaa baashu iyada is xisaabinaysa way waxaynaan ahayn wax strong aan ahayn waa fragile wuxuu hadduu fragileyna u ligliganaya uu boodboodaya golaha guurtida iminka waxaa hor yaala xeerkii furista ururada siyaasadda golaha wakiilada ee iminka shaqada ka tegayna horey usoo ansixiyeen xeerkaasi halkuu ku dambeyn karaa bay kula tagi wallahi xeerkaa dee waa xeer jiro oo dalku leeyay loona baahan yahay in la raaco broseskii horena uu soo gudbay oo baarlamaankii hore tegay way soo baaskareeyeen guurtiduu hor yaallaa guurtidu hadday sidiisa ku baaskarayso looma baahna in golo lagu celiyo toos buu madaxweynuhu saxaaxaya hadday wax ka bedesho ayaa dib loogu celin lahaa marka waxaanu rajaynaynaa inaanay waxba ka bedelin lahay sidiisa ku ansixiya si uu sharci u noqdo oo madaxweynuhu ansixiyo way ma rajo ah in ururadii siyaasadda la furo oo aad siyaasadda qayb ka noqotaan ood ururada cusub furataan ood ku biirtaan oo ayaa idinku jirta iminka adiga maxay noogu jiri weyda ma nin baa wax ku soo dhasho wada waddanka waa loo soo wada shaqeeyey nin walba muwaadinna xaq buu leeyahay hamooda waxana waa sharciga haddii la raaci waayo dee waxba ma jirayaan sharciga haddii la raaci waayo waxba ma jirayaan xisbiyadeenna horta gebigeedaba dimuqraadiyadda meelay kaga jirtaa ma jirto in xisbiyada 3 la koobo la yidhaha waa 3 ama waa 4 ama waa 2 la yidhaha meelay kaga jirtaa ma jirto iminka ingiriiska haddaad eegto inta xisbiyuu leeyahy waa 12 xisbi laakiin 2 baa dominate garaya oo process dheer oo 100 sano bay soo qaadatay waxaan iyaga isreebreebaya marka dambe wuxuun baa imanaysa in 2 ay isku soo hadhaan amba 3 ay kala booboobaan oo ay awoodii ugu badnayd yeeshaan saasaa baasha loogu talagalay innaga tan waxaa loo sameeyey baasha qabyaaladda oo inagu xoog badnayd iyo burburkii ayuunbaa la yidhi baruta alla xakameeyo alla hayo laakiin waa in la furaa dee ila maalin walba dee imika u cidoo kale 20 years bayna hor taagneed oo faysal leeyahy guddoomiyaan ahay un leeyahy oo doorashadii timaadaba u gelaya ma waxaase sharciga sharci maa sharcigu waxa weeye qofku inuu dimuqraadiyad inuu ku jirtaa inuu qof 2 jeer wax ka badan inuu jago hayaba maaha laakiin kuwan commissionkii u ogolaanayo xeerkii u ogolaanayo golihii wakiilada xeerarkii ansixiyeen u ogolaanayaan fursadahaasoo dhan soo ma haysto tanna waa sharci waxaan qabaa madaxweynuhu dee doorasho wanaagsan buu qabtee ha ku dara tanna waa israaciyo oo waa sharci dalku leeyahay sharciga aan raaco adigu ma urur baad doonaysa inaad furato cabdillah ma waqtigeeda la gaaro way dad badan oo siyaasiyiin oo aan xisbiyada imika jira ka mid ahayn ayaad moodaa inay ku faraxsiin ama dabada ka riixayaan in la furo ururada siyaasadda markaa ma waxaa jira isbahaysi guud ama faham guud oo wada leeyihiin siyaasiyiinta kale iyaguna banaanka jooga faham guud uu jiraa oo ah in ururada la furo laakiin hadhow dee cid waliba waxeeday furaansa laakiin fikir war sharciga in la raaco ururada la furo oo broseska aynu wadno si marka dambe ay noogu soo baxaan wax iminka waxaad ka soo qaadaa 2 yaryar ee 2 nin ee iminka helay maxaa la yidhaha barkhad iyo cabdikariim waxay heleen dee waxaynaan filayn oo islaan runtii tijaabo wanaagsan bayna tuseen in qofku qabiil ka bixi karo uu si shaksi ah uu weydiisan karo ummadda wax hargeysana iminka uguma horreysay 60kii way ka dhacday oo waxaa la doortay cumar dheere iyo maxaa la yidhaha shuuriye
way oo iyaguna aan qabiil ku ololayn miyaye dee qabiilkuma ololayn qabiilba ma jiro berigaa soomaali weyn baaba laga fikirayaba markaa dadka reer Hargeysa horta waxay kaga duwan yihiin gobollada kale qof aan uba dhalan bay siin karaan iminka labada nin dee labaduba isir ahaan waa Somaliland iminka berigaa 60kii dee Cumar Dheer oo kale isir ahaan Somaliland ma ahayn haddana waa taa laga doortay oo qabiilka waxa ka xoog weynaa qadiyada aaminaada Soomaalinimada iyo wadannimada ayaa berigaa ka xoog weynay oo rag badan oo waaweyn oo beesha dhaco oo waddanka joogay ayay ka heleen bal ka waran marka tii un baana iminka inay noo proof gareeyeen inay socon karto ay uu qofku qabiil ka tegi karo uu dadka wax wanaagsan wax kaga dooni karo iyo wuxuu qabanayo marka waxa weeye ururada haddaan la furin dee la soo taagnaan maayo 3 xisbi December buu ka dhacayaa 10koodii sano meel loo kordhinaya iyana ma kordhismayno bilowna iyaga ka fayoobaa iyana ma kordhina dee waxa day saasay noqonaysaa hadii la furo waa marka sharcigii nin waliba markuu yimaado uu soo doono u gelayo uu soo doono u dhigayo ayay noqonaysaa taasina meel dheer nageyn mayso in sharciga la raaco oo sharcigu si uu leeyahay la raaco ayaa muhiim ah way mudane Cabdilaahi Xuseen Iimaan arinta muhiimka ee Somaliland imika xooga wax weeyaan arinta maayarada ee dalka 7 magaalo oo ku qoran magaca degme oo Laascaanood Ceerigaabo Burco Berbera Hargeysa Gabiley iyo Boorama 7 magaalo waxaad moodaa inay gacanta ku dhigeen asxaabta mucaaradkii 5 magaalo oo kamid ah oo isbahaysigu u keenay xisbiga wadani ku guuleystay Laascaanood oo ku guuleystay Hargeysa oo ku guuleystay Boorama oo ku guuleystay Ceerigaabo halka xisbiga xukuumaddu ku guuleystay Gabiley iyo Berbera aad moodo xisbiga mucaaradka uu cudnay in uu qaatay magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer saameyn intee leeg bay ku leedahay inay 5 magaalo maayaradoodii ku guuleystaan mucaaradku oo xukuumaddii talada haysay 2 magaalo ay ku guuleysato si maxay keeni kartaa dee waxay tuseen runtii awoodoodii inaan dowladda iyo kulmiye xisbigii kulmiye inuu daciifay oo aanu awoodii uu lahaa jiray lahayn uu berigii hore ku helay madaxweynaha inaanu lahayn ee uu daciifay ayay muujinaysaa kuwana inkastoo ay iyaga ka tirsan yihiin oo awoodii mucaaradku uu awood yeesho ay xaggan ay ka soo inta badan lamaba odhan karo maxaa la yidhaha kuwan soo baxay ee ka soo baxay maxaa la yidhaha mucaaradku waa wada mucaarid lama odhan karo iminka cabdikariim dee cabdikariim madaxweynahabaa soo endorse gareeyo yidhi okay adiga madaxweynahan la shaqeynaya ma garata hadduu madaxweynaha la shaqeyn waayo shaqa u socon mayso mid walbana waa caynkaa markaa dowladdu bay la shaqeynayaane qoladani awoodoodii wayna tuseen inay dad badan soo saareen inay dad badan soo saareen laakiin dadkaa badani dee ummadda u wada shaqeynayaan iyaga keligood shaqeyn maayo kan kulmiyana dee iyagay jirtaa hadday awoodoodii kor u qaadayaan iyo isarke itaalkooda marka iyaguma ku xidhan tahay hadday wax qabsanayaan iyo hadday halkooda joogayaan maxay kula tahay inay ka khaldameen mudane maxay kula tahay inay kulmiye ka khaldameen waxay ka khaldameen inta badan dee dadka iyagaaba eriyey qaar badan oo eriyeen oo kuwa kale ka soo baxay baan arkay hadda iyaga doonayay oo jeclaa oo xisbiga ka tirsanaa oo la eriyey oo xisbiyada kale ka soo baxay baan arkayba way badan yihiin aad bay u badan yihiin aad bay u badan yihiin waa soo wada baxeenba way marka waxaad leedahay khaladku waa dadka eriyeen baad leedahay mise khalad xisbiga gudihiisa baa jiro oo u baahan in wax laga qabto iyaga laftoodan isriixayaan u malaynayaa gudahooda saasaan isleeyay way ma saameyn bay ku leedahay arintii maxamuud xaashi xisbiga inuu gudoomiye doonayey saylici oo kale hogaankii xisbiga laga saaray oo saajin oo kale uu soo galay madaxweyne ku-xigeenkii banaanka tegey maxamuud xaashina banaanka tegey wararka hoosena ay sheegayaan inay ku kala duwan yihiin siyaasadii kulmiye oo cudoo kale qayb ay ka dhiseen
arrintaa maxaad ka aaminsantay horta xisbigu isagaa jira isagay dee u taallaa qaabku structurekiisa u dhisanayo waana qaladku u dhici karaa oo dad badan oo potential oo aad ignore garayso oo hadhow wax kale kugu noqdaa way badan yihin anigu waxaan qabaa isku shaadhayntii iyo dadkan ay kala xusheen ayuumaan u arkaa inay ku qaldameen rag badan inay rag badan ku qaldameen oo islahaayeen si aan ma ahaanaya oo si kale ku noqday unba ayay u badantay isku shaandhayn baa la filayaa oo xukuumadda in isbedel ku sameeya madaxweynuhu maxaa la filan karaa bay kula tahay dadka noociya laga filan karaa iyadoo lagu dhaliilayay dadkii hore ee uu soo xuli jiray inay inta badan aanay bulshadu qanaacad badan ku qabin maxaa la filan karaa doorkan maadaama kulmiyana uu la kulmay guul daro wallaahi 4 years after iminka dee anigu waxaan aaminsanayay haddii reshafal la sameeyana reshafal wax ka bedeli kara waxan oo isbedel samayn karaa ma samayn karaan sababto waxa weeye kuwa iminka jooga qaar lamid un baa la keenaya kuwa iminka jooga qaar lamid ah mana wada bedelayaan filayaa ma bedeli karo giddigood dee ma wada bedeli karo oo shaksiyaad wuxuu taabanaya oon hadduu taabto oo reshafalku ma aha in giddi la wada dareeriyo oo la isku yaro duwaawo qaarun baa midmidun baa la taabtaa anigu waxa weyn inay bedeli karto oo sanadkii u dambeeyay ma qabo 23 sarkaal meelahaas oo dowladda ka mid ah wasiiro maareeyayaal mas-uuliyiin badan ku jiraan ayaa xildhibaanadii deegaankooda ay doonayeen inay kala soo baxaan waayey marka siday ku noqonaysaa in xildhibaankii deegaankiisana qofku waayo xukuumaddiina uu qayb ka ahaado xisbigiina uu guuleysto sidee bay isku qabanayaan haddii xisbigii xildhibaankii deegaankiisa kasoo baxayna uu dhacay isagiina dowladdii uu ka mid yahay dowladdiina uu doonaya inay xukuumaddii mar kale guuleysato sidee isku qabanayaan anigu marka horeba dee in qofka lagu doorto inuu dadka usoo berigii horey jirtay iminka heerkan aynu joogno maba wanaagsanaa in qof dadku dhexdhexaad u noqdo ummadda oo si national u shaqeeyo ayay ku wanaagsantahay heerkan iminka aynu joogno berigii hore inacigaal iyo riyaale iyo waa macquul cabdiraxmaan axmed cali iyo waa macquul oo markaa waxbaynu isku duweyno dee waxbaynu dhisayni waxaan structurekii wuu noo dhisan yahay dhaqaajin buu u baahan yahay dadkana in laysu soo dhaweeyo oo dadka wasiir weliba dadka u sugnaado ayaa loo baahan yahay laakiin mid xaafad keliya ka shaqeeya anu ma qaba inuu isagoo hoostiisa dee ka shaqeeyo xaafadiisa inuu hanan kari waayaa isagay ceeb ku tahay wuxuu ka qaban karaya ka qabto laakiin waa inuu u muuqdaa nin national oo dadkii u wada shaqeeya waktigan oo kalena iminka aynu joognana marxaladan aynu joognana dadka nationalka baa loo baahan yahay kan in ninkiisu dhacay dee hadduu ninkaagu dhaco waa lagu eraya haddii lagu yiri waa la eri haddii aan lagu odhan wuu iska joogi dee arrinta ku saabsan khibradaad u leedahay dowladnimada ee cigaal la soo shaqaysay riyaalo la shaqaysay maanta aad siiraanye iyo kulmiyana aad hataa markii ku taageertay siiraanye uu soo baxayay iyo maanta maxaa u dhexeeya kula tahay farqi wallaahi anigu markaan eego horta xisbigan kulmiya intii noo yimi waxyaaba badan oo la qabtay waa jira waxyaabo badan oo hoos u dhacayna waa jiraan anigu waxyaabaha hoos u dhacay aan mar kasta xusuusanay waxa weeye istaandkii amba kaalintii aynu ka taagnayn qadiyadda iyo soomaaliya ayaa hoos inooga dhacay waxaynu gaadhnay heer ay wax aan caalamka inooga yimaadaba iyagu inoo soo saxeexaan inagoo ka liidan oo ka daciif oo berigiina cigaal iyo berigiina riyaal weligood wax inoomay soo saxeexay waxayna gaar baynu qaadan jiray hargeysadaa gudaheeda aynu kaga saxeexnay US Deputy Secretary General nina UN-ta in 1/3 mucaawanada Soomaaliya Somaliland halkaa loo dhigo meelna loo marin UN-tuna ma aha qasab waxay doonto kuguma qasbi karto wax adiga dantaada haddaad hor dhigto way qaadanayaan
beri baa waxayna yidhaahdeen waan garanaya waxay yidhahdeen waxaan idiin qabanaynaa doono meeting oo refugeega idinkiyo Soomaaliya oo marka dib u dejinta ma gelayna baanu nidhi shaqana kuma lihin orda qaata haddaad taa qabanaysaa haddaydaan anaga mid gaaran oo qabanayn orda iska taga wala after a week bay ku soo noqdeen tani ba qaata mid gaaray Geneva inoogu qabteen tii Soomaaliyana gaar bay u qabteen waa kolba waxaad adigu doonto hadda adigu u tujilacsanaad inagu waxaan ka soo qaadaa dawladdii hore Siiraayo maalintii irkii maxamed cabdilaahi miyaa la odhan jiray arrimaha dibadda maxamed cabdilaahi dee toos buu yidhi lacagteennii baa hayaana waan la boobaynaa ma lacag iyo qadiyad baa meel wada mara waxa weeyaan nin lacag doonaya qadiyad ma dhiso oo lacag diidaya lacagtana iyaga ilaahayno iyagu ma hayaan ilaahay baa haya caalamka oo dhan baad la xiriiri kartaad heli kartaa marka waxa weeyaan anigu arrinkaa qadiyadda ilaa maantadaana UN-ta inoo soo saxeexdo beri dhaweed way ku kaceen dawladdu waxay yidhaahdeen wada shaqayntii baanu joojinay ilaa haddana sub office bay xamar imanka UNICEF-ta hadda ka Soomaaliya UNICEF-teeda xukuumaya Somaliland dee xamar buu fadhiyaa halkan waa sab haddaad imanka tagto waxa janabiyo ma joogo wax yar yar Soomaaliya yar baa lagaga tegayba meesha marka waxa weeyaan anu dhinacaasaan ka yaraa dhinaca kale horumar wax badan waa la qabta laakiin dhinaca qadiyadda ayaad moodaa nimankii reer Soomaaliya ay naga qoostay ayaa way nagu soo kaceen waa rajaaba soo gashay cabdilaahi dhinaca maan la odhan karin xisbiga kulmiye baa tiri Siiraayo SNM buu ahaa madaxweyne muusena SNM buu ahaa aduna SNM baad ahayd saddexdiinuba waxaad ahaydeen dadkii ugu sarreeyey saraakiishii SNM qadiyadii SNM baa marka horena ka dagaalantay oo labadii wadan kala goysay imikana iyada hoos u dhigtay miyaa la odhan karin oo mas-uuliyaddii idinku mar labaad qaadan karin sidaa hadday tahay aad u doodeyso dee SNM-tu dadku dee isku wadaa SNM la ahaado laakiin dadka shaqaynaya ninka la odhan jiray Siiraayo dee runtii waktigii uu meesha yimi wakti adag bay ahayd niman yaryar baana shaqaynayay oo wareeriyay dadka dee waa kii xarsiba ku yidhi halkaa wuu markuu wax yar joogay buu xanuunsaday dee kuwaas SNM ma ahayn isaguna hadduu sidii uu ahaan jiray uu yahay wax badan oo dhacay may dhaceen uu nasiib daro uu ku xanuunsaday meesha wakti xunoo dee uu wakti dambe waktigu dee ninka adag ahaa maynaan geene wakti uu soo daciifayba ayuu nasiibkiisa ku kulmiyey muuse waxa ma qabo waa dhalinyaro isku daa baanu nahay waxa ma qabo laakiin haddana sidaanu ka doonaynay aynu islahayn dee nin adag baan ku tirinayno bahasha soo haddana sidaanu ka doonaynay weli waxaad moodaa inagu kama hayno weli UN xamartii iyo UNT iyo wixii baa weli la hadalaya oo dhagaha iyaga maalin walba ka soo qoslaya marka waxaan rajaynayaa inuu magacii SNM-na dhowro isaguna isdaba qabto nimankaa inaga soo ooda nimankaasi niman wax ka dhammaanayaan maaha iyaguna dhammaan maayaan inaguna intaynu sor fadhiisano weligeen isfahmayno iyaguna hagaagi maayaan oo meesha kun inkaarood baa ka dhacay iyo balaayo marka inaan waktiba la iskaga luminayo uu inteenna yar inoo dhaqaajiyo ayaan anu kula talinaa oo ku koobnaado wasalaamu calaykum daawadeelkaas waxau ahaa cabdilaahi xuseen iimaan dirawal oo ahaa saraakiishii ururkii SNM isla markaasina ahaa wasiirkii hore caafimaadka ee xukuumaddii madaxweyne Riyaale sidoo kalena soo qabtay wasiirkii dib u dejinta cabdilaahi xuseen iimaan waa siyaasiyiinta waaweyn ee Somaliland isla markaasina ay haatan rajada ka qaba in la furo ururada siyaasadda ee Somaliland barnaamijka waxaan la socodsiinaya aniga Maxamed Eliga iyo film qaadistii iyo editingkii Sakariya Saciid tan iyo kulanti dambe waa MMTV oo idin la nabadgeliyo MMTV